inteena badan waxaynu ku garaadsanay maqalka codkan iyo aragtida astaantan caanka. dabcan isla markiiba waa aad garatay astaanta, waana astaanta shirkaddii weyneed ee Nokia, waxaana macquul ah inay xasuuso hore ku gelisay. balse weli ma isweydiisay maxaa ku dhacay Nokia, maxayse uga baxday saaxadda telefoonada caalamka, maxaa keenaysa inay burburto shirkaddani aadka u weyneyd. sanadkii 2011 madaxii shirkadda Nokia Stephen Elop ayaa warqad uu ciwaankeedu yahay Burning Platform ama aaga gubanaya u diray shaqaalaha shirkadda, isagoo ku sifeeyay Nokia sidii inay tahay nin dul saaran ceel shidaal badda ku dhex yaala, kaasi oo dabqabsaday ama gubanaya, oo ay u furan yihiin kaliya laba doorasho oo kala ah inuu badda qabowga badan ee bahaluhu ka buuxaan uu isku tuuro ama inuu dabka ku gubto. waxuuna warqadan ku muujiyey murugada iyo welwelka ka hayay shirkadda Nokia ee uu gobolkeedu sii dhacayo. balse xaqiiqadu sidaasi ma ahayn, waxaana la sheegaa in Stephen Elop aanu ahayn qofka uu iska dhigayo ee daacadda ah, balse uu ahaa khiyaanolo loo soo diray si uu u dumiyey shirkadda Nokia. sanadkii 2007 qiimaha guud ee shirkadda Nokia waxa uu ahaa $150 bilyan. Nokia kaliya ayaana laga qaadan jiray 4 meelood meel ka mid ah cashuurta guud ee u soo xirootaa dalka ay ku taalay ee Finland. marka waad dareemi kartaa weynaanta iyo baaxadda ay lahayd shirkaddani. haddaba sidee ayay ugu suurta gashay inuu hal nin oo kaliya uu u dumiyey shirkadda Nokia, weliba sidii ugu foosha xumayd? maxaase ka saaciiday duminta shirkaddan? haddaba si aynu arrimahaasi oo dhan u ogaano, aynu dib ugu safarna waqtiga si aynu u tagno maalinkii la asaasay shirkaddan. balse intaynan u gelin muuqaalka, fadlan waxaa kaa codsanaya inaad like saarto, si share garayso muuqaalka la wadaagta asxaabtaada. haddii aad nagu cusubtahay inaad nagu soo biirto, aad iyo aad baad u mahadsantahay. aan kuu sheegay shirkaddani bilowgeedii hore kama aanay shaqayn jirin gebi ahaanba tiknoolajiyadda ama wax la xiriira elektrooniga. waxaana la asaasay shirkaddan sanadkii 1865 oo ah waqti hadda laga joogo 160 sano. markeedii hore waxay ahayd shirkad soo saarta waraaqaha, waxaana asaasay nin injineer oo lagu magacaabo Frederick Edstam. sanadkii 1871 ayaa shirkaddan loo bixiyey magaca Nokia kadib markii ay shirkaddu laan ama farac ka mid ah ay ka furatay jiinka webiga lagu magacaabo Nokia Firta, meel ku dhow tuulada lagu magacaabo Nokia ee waddanka Finland. Nokia kaliya kuma aanay ekayn samaynta waraaqaha, ee sidoo kale waxay ku jireen ganacsiyo kala duwan sida ganacsiga rubberka ama cinjirka oo ay ka samayn jireen taayirada iyo sidoo kale kabaha. sanadihii 1970 shirkadda Nokia waxay gashay ganacsiga isgaarsiinta iyo samaynta raadiyayaasha, waxayna qalabka isgaarsiinta u samayn jireen ciidamada dalka Finland. sanadihii 1980 shirkadda Nokia waxay ahayd shirkad aad u ballaaran oo qaybo aad u tiro badan oo kala duwan leh, kuwaasi oo soo saara agabyo kala nooca sida tiifiyada, kombiyuutarada, taayirada, keybalada, qalabka elektrooniga ee militariga iyo sidoo kale qalabka isgaarsiinta. sanadkii 1982 Nokia waxay soo saareen moobilkoodii ugu horreeyay, kaasi oo lagu magacaabi jiray Mobira Senator. wuxuuna ahaa moobil loogu talagalay in gaariga lagu isticmaalo, wuxuuna ku shaqayn jiray dabka gaariga. sanadkii 1987 ayay soo saareen moobilkoodii ugu horreeyay oo portable ah ama la qaadan karo, waxaana lagu magacaabi jiray Mobira Cityman 900. balse xilligaasi 1980 waxa uu suuqa telefoonada u kala xirnaa shirkadda Motorola oo ahayd shirkaddii ugu horreysay ee moobil gacmeed soo saartay. bilowga 90-meeyadii dalka Finland waxa uu galay dhaqaale xumo weyn, sidoo kalena waxaa dumay midowgii Sofiyeeti oo ahaa suuqa ugu weyn ee ay Nokia badeecadaheeda u dhoofin jirtay, maadaama ay Finland daris la ahayd Sofiyeetka. shirkadda Nokia oo ay tala ku caddaatay ayaa waxaa horyimi laba go'aan oo kala ah inay sii ahaadaan shirkad generaal ah oo waxyaabo badan soo saarta, ama inay xoogga saaraan isgaarsiinta maadaama ay dadku xiise ballaaran u qabaan, sidoo kalena ay mustaqbal weyn leedahay. Nokia waxay go'aansadeen inay xoogga saaraan isgaarsiinta, sidoo kalena ay hoos u dhigaan wax soo saarkooda kale. sanadkii 1992 Nokia waxay soo saartay moobilka Nokia 1011, waana moobilkii ugu horreeyay caalamka ee leh nidaamka GSM-ka oo ah nidaamka ay isku fahmaan moobilada ay shirkadaha kala duwan ay soo saaraan ama ay simikaarada kala duwan ay ku jiraan. sanadkii 1998 Nokia waxay suuqa moobilada kala wareegtay shirkaddii weyneyd ee Motorola. bishii 12aad ee isla sanadkaasi ayay Nokia soo saartay moobilkeedii 100 milyanaad. sida aad ka arki karto nambarka weyn ee Nokia sida dhaqsaha ku gaartay waxaa sababay inay suuq ballaaran ka hesho dhanka dhalinyarada, maadaama ay ku dadaaleen naqshadaynta iyo sidoo kale kalaraynta moobiladooda iyo inay sameeyeen adeeg lagu magacaabo Express On.
adeegan express on ayaana ahaa inaad moobilkaaga koofarkiisa oo dhan aad bedeli karto. dhallinyaraduna aad ayay u xiiseynayeen inay maalin walba kalar nooc ay taleefankooda ka dhigaan, taas ayaana keentay inay dhallinyaradu ay iibsadaan moobil Nokia ah beddelkii ay gadan lahaayeen moobil Motorola ah. sanadkaasi 1998 gudihiisa Nokia waxay iibka ka heshay lacag gaaraysa $20 bilyan oo 2.6 bilyan oo kamid ay tahay faa'iido. markii la gaaray sanadkii 2000 shaqaalaha shirkadani waxuu kor u dhaafay wax ka badan 55,000 oo qof, halka shirkadda Nokia ay haysatay 30% guud ahaan suuqa telefoonada caalamka. isla sanadkaasi 2000 Nokia waxay soo saartay lejinkii caanka ahaa ee Nokia 3310 oo ahaa mid ka mid ah telefoonadii ugu caansanaa taariikhda caalamka, waxaana lagu xasuustaa adkaysigiisii cajiibka ahaa. sanadkii 2003 Nokia waxay soo saartay moobilkii abid taariikhda loogu iibsiga badnaa ilaa iyo maantadanaynu joogno, waana Nokia 1100, kaasi oo laga iibsaday 250 milyan oo xabo, waana moobilka tirada ugu badan laga iibsaday taariikhda caalamka. bishii koowaad 9keedii sanadkii 2007 waxay ahayd maalin gooniya. waa maalintii uu dhacay isbeddelkii ugu weynaa ee taariikhda moobilka gacanta ee casriga. maalinkaas Steve Jobs, maamulihii shirkadda Apple, ayaa soo bandhigay taleefan casriya oo aan noociisa hore loo arag. wuxuuna ahaa taleefan aan badhamo la taabta lahayn ee leh shaashad ballaaran oo taabashada ku shaqaynaysa. moobilkaasi magaciisu wuxuu ahaa iPhone 2G. bandhigaasi kadibna waxaa isbedelay gebi ahaanba jihadii ay u socdeen taleefanada caalamka ee casriga. dadweynuhu waxay bilaabeen inay si xawli ah u iibsadaan moobilka cusub ee cajiibka ah ee ay soo saartay shirkadda Apple. sidoo kale waxaa jiray shirkado kale oo soo korayay kuwaasi oo si degdeg ah ugu baahay suuqa telefoonada, waxaana ka mid ah shirkadda Samsung. shirkadda Apple taleefankooda iPhone waxay u adeegsadaan mobile operating system iyaga u gaara oo lagu magacaabo iOS. operating system waa nidaamka ama programka ay ku shaqeeyaan kombiyuutarada iyo sidoo kale moobilada. marka shirkaddan Apple waxay adeegsataa mid lagu magacaabo iOS. dhanka kale shirkadaha Samsung, HTC iyo LG waxay qaateen nidaamka Android oo ah mid open source ah ama furan oo shirkadaha oo dhammi ay adeegsan karaan. balse xilligaasi shirkadda Nokia waxay adeegsanaysaa nidaamkoodii lagu magacaabi jiray Symbian operating system. balse nidaamka Symbian xilligaasi bilowga 2010-yadii wuxuu ahaa midaan casrigaasi ku habboonayn oo qadiimiya, sidoo kalena aan la jaan qaadi karin telefoonada casriga. xilligaasi maamulihii fulinta ee shirkadda Nokia, Stephen Elop, waxaa horyaalay doorasho ah maadaama nidaamkoodii Symbian uu noqday mid qadiimiya inay u wareegaan nidaamka Android sida ay shirkadaha badankoodu sameeyeen, maadaama uu yahay mid firiya, ama inay shirkaddu samaysato nidaam cusub oo iyaga u gooniya. xilligaasi shirkaddu waxay waday dhisidda nidaam cusub oo lagu magacaabo Migo, balse maadaama ay shirkadda mashaariic badani ku furnaayeen, waxaa dib u dhacay xilligii la soo saari lahaa nidaamka Migo. marka waa halka ay xaaladdu ka xumaatay. ninkii Elop ahaa halkii u dooran lahaa nidaamka Android ama uu sugi lahaa nidaamka cusub ee Migo, waxa uu la yimi aragti cusub oo ah inay qaataan nidaamka Windows ee shirkadda Microsoft. laakiin waxa macquul ah inaad isweydiinayso oo Windows ma ahayn nidaam kombiyuutar, moobiladan miyuu ku shaqeeyaa? jawaabtu ahaa oo Microsoft waxay sameeyeen nidaam Windows Mobile ah oo moobilada loogu talagalay. marka aan ku leeyahay xaalku halkan ayuu ka xumaaday, waxaan ula jeedaa in Stephen Elop ka hor inta aanu qaban xilka shirkadda Nokia uu ahaa maamulka ku-xigeenka guud ee shirkadda Microsoft. waxaan filayaa inaad qiyaasi karto halka uu xaalku u socdo. dad badani waxay aaminsan yihiin in Stephen Elop uu ahaa nin loo soo diray inuu shirkadda Nokia uu gacanta u geliyo shirkadda Microsoft. waxaana lagu sheegaa inuu ahaa Trojan Horse. Trojan Horse waa sawirka halkan kaaga muuqda. waa sheeko xiriir khiyaaliya oo ahayd in Giriigii hore ay sameeyeen faras weyn oo loox ka samaysan, kadibna ay hadiid ahaan u hordhigeen derbiga weyn ee ku wareegsan magaalo lagu magacaabi jiray Troy. balse markii ay reer Troy qaateen faraskii weynaa oo ay geliyeen gudaha magaaladooda, markii la gaaray xilligii habeenka, faraskii weynaa ee looxa ahaa gudihiisa waxaa ka soo dhex baxay ciidamo hubaysan. ciidamadaasi hubaysanna waxay ballaqeen dhammaan albaabadii magaalada, sidaasi ayayna Giriigu ku qabsadeen magaaladii Troy. marka dad badan waxay qabaan in Stephen Elop uu ahaa Trojan Horse ay gudihiisa ku dhex jirto shirkadda Microsoft. sababta ninkan markii hore looga dhigay madaxa shirkadda Nokia
waxay ahayd in boorka ama maamulka sare ee shirkadda Nokia ay doonayeen maamulo aan Finnish ama Finlandese ahayn sidoo kalena leh aqoon software maadaama shirkadda lagu xamin jiray inay tahay shirkad hardware macnaha in jir ahaan moobiladoodu ay beel ahaayeen oo haddii aad dabaq 10 biyaanac ka soo tuurto aanu isbedelin balse program ahaan ama software ahaan ay ahaayeen kuwa aad u liitaa oo aan la tartami karin Android iyo sidoo kale iOS sidoo kalena Stephen Elop waxay ka filayeen inuu xiriir wanaagsan la leeyahay shirkadaha waaweyn ee Mareykanka sida Microsoft iyo Google oo ay ka filayeen inuu xiriir wada shaqayn oo wanaagsan ula lahaan karo nidaamkii cusbaa ee uu qaatay Stephen Elop ee Windows Mobile waxa uu noqday mid aan tayo badnayn oo aan la tartami karin nidaamyada iOS iyo Android halkaasina waxaa ka bilowday dhimashada shirkadda Nokia waxaana maalinka ka dambeysay hoos u dhacay iibsashada moobilka Nokia maadaama ay suuqa qabsadeen moobilada iPhone oo ku shaqeeya nidaamka iOS iyo sidoo kale moobilka Samsung oo ku shaqeeya nidaamka Android sida ay maalinta ka dambeysay shirkadda Nokia hoos ugu dhacaysay aakhirkii shirkadda Microsoft ee lahayd nidaamkii fashilmay ee Windows Mobile ayaa u soo bandhigtay shirkadda Nokia inay ka iibsanayso qaybta soo saarta moobilada sanadkii 2013 ayay shirkadda Microsoft lacag gaaraysa 7.2 bilyan oo dollar ay ku iibsatay shirkadda Nokia qaybteeda moobilada sanadkii 2014 ayuu heshiiskani dhamaystirmay waxaana sidaas ku soo dhamaaday waqtigii iyo noloshii dheerayd ee moobilkii caanka ahaa ee shirkadda Nokia kadib markay iibsadeen Nokia Microsoft waxay bilowday inay moobiladeeda horumariso oo moobilo casri ah soo saarto balse marnaba moobiladeedu ma ahayn kuwa la tartami kara Samsung iyo sidoo kale iPhone maadaama nidaamka Windows aanu ahayn mid la tartami kara Android iyo sidoo kale iPhone oo nidaamkani Windows badanka ma aanu ahayn mid ku shaqeynaya applicationada caanka sida kuwa social mediaha ee Facebook YouTube iyo wixii la mida iyo sidoo kale kuwa gameska kala duwan aakhirkiina shirkadda Microsoft qaybteeda moobiladu si tartiib ay u dhimatay sanadkii 2017 ay shirkadda Microsoft joojisay samaynta telefoonno cusub oo Microsoft shirkadda Microsoft xuquuqda magaca Nokia waxay ka iibiyeen shirkad lagu magacaabo HMD taasi oo hadda adeegsata magacan soona saarta telefoonno wata magaca Nokia shirkaddii weyneed ee Nokia wali waa ay shaqaysaa oo kaliya waxay iibiyeen qaybtii moobilada balse waxaa haray qaybihii kale oo hadda waa shirkad ka shaqaysa waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin isgaarsiintu casharka aynu ka baran karno burburka shirkadda Nokia waa haddii aad diido isbedelka in lagaa tegayo casharka labaad aynu ka baranayno waa inay adag tahay in la gaaro halka ugu sarreysa balse ay ka sii adag tahay inaad booskaaga xigsato oo aad ku adkaysato halka ugu sarreysa aan ku weydiiyay su'aal ma xasuusataa taleefankii ugu horreeyay ee Nokia aad qaadato ama ay waalidka ama qaraabadaadu ay xilligaasi haysteen markii aad maqasho shirkadda Nokia se taleefankii ayaa maskaxdaada ku soo dhacay aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa inaad halkan la soo gaartay fadlan helowna like saarta muuqaalka si shargarayso la wadaagta asxaabtaada haddii aad nagu cusubtahay inaad nagu soo biirto wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh